Assalaamu calaykum. Sheeko la wariyey laakiin xaqiiqadeeda Ilaahu naga ogyahay haddaan maanta idin sheego. Waxaa la yidhi waxaa jirtay qabiilo la yidhaahdo Bani Carafa. Waxaana loogu bixiyey baa la yidhi waxay ahaayeen qolo xikmad badan, caqli badan, waxgarasho badan. Qabiilka waxaa ka mid ahaa nin odaya. Odaygu 3 wiil buu dhalay. Wuxuu u bixiyey Cabdullaahi. Kadib odaygii geeridii baa u imaatay markuu dhimanayay wuxuu qoray warqad uu ku leeyahay Cabdullaahi wuu dhaxlayaa, Cabdullaahina ima dhaxlayo, Cabdullaahina wuu dhaxlayaa. Odaygii la xabaal 3 nin way isku soo hadheen, waxay garan waayeen midkooda wacalka. Kadib waxay go'aansadeen nin qaadi ah oo xikmad badan iyo caqli badan lagu yaqaanay inay aadaan. Qaadiga intay ku sii socdeen waxay arkeen nin daydeehaya riti ka fakaday. Wuu weydiiyey, mid baa yidhi ritigu ilma la'a. Haa ayuu yidhi. Mid kale weydiiyey, ritigu saynta ma goona. Haa ayuu yidhi. Mid kale weydiiyey, ritigu naafay ma aha. Haa ayuu yidhi. Waxay yiraahdeen maana arag, laakiin halkaan mar halkaa ka bax, meesha ka raadso. Ninka wuu xanaaqay, wuxuu yidhi ritiga aad saa u tilmaanteen ee 3 tilmaamoodba aad sheegteen, haddaad i tusi weydaan ama gacanta ii gelin weydaan idinkaa isticmaalay, idinkaa gatay ritigii. Maxkamaddaan idin geynayaa qaadiga ama ritigaygii ii dhiiba. Kadib waxay yidhahdeen ila mari qaadiga annagaaba u soconnee, sidii baa la isku raacay. Qaadiga markii loo tegey, arrintan ay uga warrameen inay 3 nin is haysteen, ninkaana uu hadda ku soo biiray oo 3 u haysto. Qaadiga meel buu dejiyey, wuxuu yidhi halkaan iska jooga intaan arrinkiina ka galahayo, halkaan ha laydinku marti qaado. Qaadiga nimanka wuxuu u soo diray nin jaajuus ah oo nimanka kor taagnaado xogtooda ogaada. Ninkii mid ka mid a 3 nin wuxuu yidhi qaadigu waa garac. Yacni ninkan meesha xukumay qaadiga waa garac. Ninka uu ku abtirsaday aabbaha u ama una dhalin. Kadib waxaa loo keenay canjeelo lagu soo daray hilib. Markay afka saareen oo ay cunayeen, mid ka mid ah wuxuu yidhi hilibkan laynoo keenay waa hilib ay. Midkii 3aadna wuxuu yidhi canjeeladan laynoo keenay waxaa dibtay islaan uur leh. Ninkii jaajuuska ahaa ee nimanka kor taagnaa, qaadlig buu u tagay wuxuu yidhi nimankii waxay sheegeen canjeelada qof uur leh inay dibtay. Qaadliga ha baadho amikii canjeelada qoftii dibtay la raadiyo. Inay uur leedahay in kale waa la soo xaqiijiyay inay islaanta uur leedahay. Kadib hilibkii baa la baaray ninkii soo qalay, ma hilib ayaad soo qashay. Wuu diiday marka hore laakiin wuxuu qirtay haa markii dambe. Hilib ayaan soo qalay, waxaan waayay xoolihii la qali lahaa maanta, kadib ay baan soo qabtay waan qalay. Arrintii 3aad ee ahayd qaadliga inuu garac yahay, ilaan weligiiba muun maqale, halkii buu ka booday hooyadii buu afka iskaga shubay. Arrintii buu bilaabay inuu baaritaan ku sameeyo, inuu soo taxqiijiyo ugu dambayn ninka uu ku abtirsaday inuu dhalin. Ninkii wuu u yimid, wuxuu yidhi ninkaan ritigiisa sideed ku ogaateen inuu ilaa yahay, inuu lug laayahay oo naafa yahay, inuu sayn laayahay. Kii koobaad baa ku horreeyay wuxuu yidhi ninka ritigiisu inuu ilaa yahay waxaan ku ogaaday geedka markuu ku soo baxo hal dhan buu ka daaqaa, kadib wuu ka leexdaa, dhankaa unbuu ka maraa, dhankuu ka daaqay unbuu ka maraa, dhankii kale maba wareego, maba oga dhankaa kale wax ku yaalla. Saas darteed waxaan ku xaqiiqsaday inuu ritigan ilaa yahay oo geedka halkaa dhan kaliya uu ka arko. Kii kale wuxuu yidhi labaad ninkan ritigiisu inuu saynta go'an yahay waxaan ku ogaaday neefka geela markuu xaarayo saynta wuu dhaqdhaqaajiyaa, kadib wuu kala firdhiyaa xaarka halba meeluu ku tuuraa. Ninkan ritigiisu toos u wada xaarka ma kala firdhinayn. Waxaan ku xaqiiqsaday arrintaas inuu ritigaan sayntii go'an yahay. Kii 3aad wuxuu yidhi ninkan ritigiisu inuu naaf yahay waxaan ku ogaaday dhinac ka mid a labadiisa dhinac markuu dhulka saaro wuu ku duleynayay ritigu. Yacni raadkiisu sidii neef geelo caadi uma istaagaynin, dhulku goosanayay. Kadib qaadigu wuxuu u soo noqday 3 arrimood ee isaga ku dhacday. Wuxuu yidhi canjeelada qofta indii dubtay inay uur leedahay maxaad ku ogaateen. Wuxuu yidhi islaantu markay dubaysay canjeelada dhinac ka mid a labadeeda dhinac way buureed bahashu si fiican umayna masixin, dhinacna way ka bislaatay oo way jilicsanayd.
saas darteed waxaan ku ogaaday islaantu inuu caloosha wax ugu jiray kadibna dhinaca xaggooya ayna gaari karin oo dhankeeda kaliya ay si fiican u gaadhay. baa la weydiiyey dowrkiisii baa imaaday, waxaa la yidhi maxaad ku ogaatay hilib ay inuu yahay? wuxuu yidhi waxaan ku ogaaday hilibka xooluhu laftaa u hooseysa, hilibkaa ku xiga, baruurtaa ku xigta, laakiin hilibka eyga laftaa u hooseysa, baruurtaa ku xigta, hilibkaa ka soo koreeya. saas darteed waxaan ogaaday hilibkan inuun ahayn hilibka xoolaha, hilib ay u yahay. kii saddexaad dowrkiisii baa yimid, waxaa la yidhi maxaad ku ogaatay ninkan qaadiga inuu yahay garac? wuxuu yidhi ninkan qaadiga markaan imaanay wuxuuna kor keenay nin jaajuusana kor taagan. arrinkaana inta badan waxaa sameeya dadka aan xalaasha ahayn, yacni dadka aan nadiif ku dhalanin ee qaab garacnimo ku dhashay. saas darteed baan ugu maleeyey ninkan inuu yahay nin garac ayaan u gartay. ninka qaadiga intuu yaabay oo madaxa qabsaday wuxuu yidhi qofka garac kale unbaa garan kara. saas darteed ka garaca waa adiga, ka garaceen wax dhexlaynin waa adiga i gartay. ninkaagan i gartay aabbahaa kuma dhalin, anna ima dhalin aabbahay, adna aabbahaa kuma dhalin, labadeenna ayaa laba garaca. saas darteed ayaan isku garannay. qisada waxaan ku soo gabagabaynayaa dadka xun baa garta. dadka xun iyagaa isdoonta, iyagaa isgarta, iyagaa dadka kale iska jecel, iyagaa dadka kale iska xiga. sababtuna waxaa weeye xumaantay isla qooshtaan, bakhtiga isla cunaan, dadka wanaagsanna iyagaa isgarta. wassalaamu calaykum.